السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمان aad baan idiin salaamayaa. Dhammaan daawadayaasha ku taxan channelkeenan MM Media. Ugu horreyn aad baan idinkaga mahadcelinaya sida wanaagsan channelkeena ugu taxan tihiin. Ardayda casharka hore daawatay waxaan leeyahay soo dhawaada. Haddii aadan ku cusubtay channelka marka hore ay tahay subscribe saar. Waxaana jiray casharkan ka horreeyay waa casharka koowaad soo daawa fadlan si aad noola qabsatid. Intaan kalaaska bilaabin waxaan jeclahay inaan dhowr qodob ka hadlo. Marka koowaad inaad diyaarsataan buugaagtiin iyo noticekiinii sidoo kale ilaa dhamaadka ku taxnaataan si nuxurka casharka ay fahantaan. Qodobo muhiim ah ayaa ku jira casharka maanta oo casharada ugu muhiimsan koorsooyinka aan bixin doono. Topiga maanta wuxuu ku saabsan yahay affiliate marketing. Horey haddaan waxay idin soo digital marketing waxay tahay sida looga shaqaysto fursadaha adduunka ku leedahay sida loo barto inta waa soo sharaxnay. Marka categories-keedii kan ugu horreeya bilaabana maanta affiliate marketing oo runtii aad cajiib u ah. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa inaan qeexno affiliate marketing-ka qaybihiisa sheegno iyo sida looga shaqaysan lahaa. Mar kaleeto waxaan idin leeyahay channelka daawadayaasha ku xiran share gareeya haddaad share gareysan dad badan oo u baahan ayuu gaarayaa. Waxaan kan waa open resource marka dad badan oo baahan baa jira u baahan inay bartaan. Marka sidoo kale subscribe saara. Sidoo kaleeto waxaa kusoo biidhaan channelkeena telegramka ah groupkeena telegramka ah runtii groupkaas oo discussion fiican uu ka socdo su'aalo la isku weydiiyo casharada qiimeyn lagaga sameeyo waxyaabaha cusubna mar walba aan halkaas kusoo share gareyno. Sidoo kaleeto waxaan rabaa laga yaabaa dad daawanaya ganacsato iyo dad u baahan in la talin gooni ah loo sameeyo iyagana waxaan nasiib wanaag waxaan iyaga u sameynay meel gooni ah inay whatsappka nagala soo xiriiraan oo ay maxaan ku rahdaa loo sameeyo buug garaystaan kadibna platform gooni loo sameyn doono waxay u baahan yihiin in nagala xalin doono. Soo dhawaada mar kale affiliate marketing kooraska ku soo dhawaada. Waxaan rajeynayaa inaad casharkii horeeto nuxur fiican aad ka fahanteen. Sidoo kaleeto wixii linkiga telegramka waxaan ku reebi doonaa iyo xogta dhan qaybta description-ka markaad casharka dhamaystaan hoos ka fiirsha. Affiliate marketing haddaan usoo laabto affiliate marketing waa maxay? Asxaab badan baa runtii aad iga codsatay inaan kooraskan ka hadlo ka hor intaan hataa casharkaana bilaabin. Affiliate marketing waa qaab qofka marketka digital marketka uu ku promote gareynayo dad kale badeecadood. San hore soo sheegnay digital marketingku waa ficil dhiirigelin qofka wax iibsado. Marka hore ama waxa ka shaqeyso shirkada u shaqeysid wax u xayisiinaysay amaba shirkadaada wax u sameynaysay wax u sameynaysa xayisiin laakiin tan waxay uga duwan tahay badeeco ama service aad lahayn baa xayisiinaysaa. badeecadaasi sarka marka la gato baaduna waxa leedahay commission inta ka horeysa waxa ma leeyahay. The best thing about affiliate marketing waxa weeye in aadan u baahnayn inaad yeelatid badeecadaas iyo service-kaas. Sidoo kale waxa kaliya oo ay bahashaan ayadana sida best ay ku tahay waa maxay? You can also promote different products and earn money. Waxa laga yaabaa kuwa kaleeto inta business-kaaga una xayisiisay laakiin intaa oo kun oo business ba tan xayisiin kartaa alaabtood. Intaa oo kun marka laga gatana mid walba commission baa ku leedahay. Si guud haddaan u fasirno affiliate marketingku waa inaad maxaan ku rahdaa xayisiisid alaabadan adigu lahayn ama service adigu aadan lahayn mar kasta oo la gatana commission aad ka heshid. waxa ay ku fiican tahay affiliate marketingkuna waa maxay? badeecadan adigu ma lihid service-kan adigu ma lihid in allaala intaa rabtid badeeco ahna baa runtii xayisiin kartaa. Okay, affiliate marketing see u shaqeeyaa waa in simple sida hadda idin sheegay qofka affiliate marketing wuxuu helayaa link bimatalan annaga online baa mar walba ka hadalnaa bimatalan shirkad baa waxa u baahan tahay inaad affiliate u sameysid shirkadaha ay saa wada xiriiri doontaan gadaal baan kaga hadli doonaa. shirkadaas linki bay ku siinaysaa linkigaas waxaa la socda affiliate oo cookie ah oo browserka ku kaydsan. Marka kadib qof kasta oo iibsada buu ku count gareynayaa kadibna commission badeeco kasta oo linkiga ka soo xarato magacaaga lagu dul qorayaa kadibna commission baa ku leedahay. Qaabkaas u shaqeeyaa. Waxaa laga yaabaa linkiyadu inay sometimes dhacaan oo waqti ay leeyihiin. Dan idinkugu celiyo waxa waaye qofku wuxuu helayaa linki bay siinayaan linkigiisa isaga gooni u ah oo customize u ah. Waxaa laga yaabaa linkigu shirkad magaceedu wato oo magaciisu wato linki la customize gareeyay ama aan customize ahayn oo linki iska dheeraaday kadibna qofka linkigaas la siiyo isagaa tagaya group ku xayisiisto content isagu leeyahay ku xayisiisto meel walba ha la tagay linkigaas waxa la socda file yar
linkigaas de waa badeecada linkigeedii soo maa qof kastoo badeecada iibsada oo linkigaa soo raacay goonida u ah isaga commissionkiisii buu helaya saasay u shaqaysaa marka su-aal baa meesha ka timaado how much money can I make as affiliate marketer kuwii hore waa soo sharaxnay digital marketingka shaqooyinka laga soo qabto meelaha waxaasoo dhan su-aashu waxay tahay meeqa lacag ka samayn karaa affiliate marketing simple answerka waa maxay there's no limit waxay ku xiran tahay niishka aad dooratid waxa topiga aad dooratid badeecada aad dooratid dee badeeca la gadanaya ma tahay waxa haysiinaysid waa la mid oo waxyaabaha kaleeto haddaad badeeca la gadanaya dee cidna lacag maanta dhan commission ma helisid iyo waqtiga aad gelisid most successful marketers make 6 or 7 figures in the month waxaa la yidhi dadka ugu badan normalka most yani averageka intuu badan waxay sameeyaan dadka successfulka baa laga hadlayaa bishii waxay sameeyaan celcelis ahaan 7 ilaa 6 kun bay sameeyaan Kimi Mine baa la yidhi sidoo kaleeto horeyna waa idinkugu soo sheegay mar labaadna way kugu celiyeen dadkaasi yani bishii 6 kun 7 kun affiliate market ka sameynaya waa kuwee waa dadka waxaa la yidhi years of hard work kusoo jiray dad inta shalay maanta bilaabay isla maanta faxayo isla maanta liibaanaya maaha waa dad hard worker oo sanad iyo waqti intaas kusoo jiray wey with a hard work the right knowledge and time juhud iyo shaqo adag cilmigeediina qofkii leh waqtina geliya intaa iyo in ka badanba runtii wuu samayn karayaa weye wax yar sorry intaas iyo wax ka badanba runtii wuu samayn karayaa wey marka muhiimaddu waa maxay affiliate marketingka qofka lacagtu shaqaysan karo yani aad bay u badan tahay qofkii de wax xadidaya ma jirto intaasoo shirkadood ba wax haysiinayaa laakiin waa qofkii juhud iyo waqti iyo maxaan kale intaba geliyey oo years kusoo dhex jiray weye mana aha shaqo runtii sahlan oo shaqo aad u adag weye ma jirto wax inta maanta aad bilowdid aad maanta ka faaxaysid waxay u baahan tahay cilmigeedii iyo waqtigeedii iyo juhdigeedii sidaas daraaddeed stick to the point ila socda ha ku degdeginina inaad ku fikirta inaad maanta ka samaysaan qof hard workera oo keliya baa insha allahu tacala hawshan ka bixi kara okay wadaad tusaale wax walba adduunka tusaalayaal bay leeyihiin ayaa ka mid ah dadka successfulska ee maadada tan ka liibaan affiliate marketingka ninka la yihahdo Flynn oo smart passive income iska leh $100,000 buu bil ka sameeyey December 2016 sharaacadoo dhan baa lagu soo qoray ninkaasi wuxuu leeyahay majalad blogger ah oo maxaan ku rahdaa wax lagu qorqoro writer dad badan baa marka akhrista dadkaas akhrisanaya wuxuu ka faa'iidaysan oo linkiyo soo qaatay uu hoosgeliyo oo badeecooyin oo dad uu soo qaatay badeecooyinkii waa la gatay marka commission aad u badan buu helaa December 2016 bay ahayd sidoo kale ninkaasna iska leh Sense of Sense $50,000 buu bil ka sameeyey waa ragga ugu tusaalayaasha fiican waa bil keliyana 100,000 oo 50,000 heshin waana xilliyada statisticskan waa xilliyada hore wixii 19kii ka horreeyay corona ka hor hadda fursaddii aad bay u badan tahay marka la idin sheegay oo shirkadihii way yani soo fahmayaan mar walba oo sii dambeeyana wixii waa lagu liibaanayaa labadaasina waa labada nin oo tusaalaha loogu soo qaata affiliate marketingka guusha laga gaaray iyo dadka juhdi iyo waqtiga ku bixiya siday u liibaanaan majaladooda midnina iska content caadi ah buu qoraa weriye ma ahan laakiin dee waxyaabaha la xiriira nolosha shaqooyinka waxyaabaha sare u kaca waxaas u qoraa marka dad badan ba akhristaa mar walba dadka akhristaana linkigaaga yani waxaa saamaxaya inaad dad badan linkiyadaada aad soo dhigta ay wax gataan factors about affiliate markets xaqiiqooyin ku saabsan affiliate markets waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo soomaalida ah in loo sheego affiliate marketka kan weeye 5 ilaa 6 xaqiiqo oo runtii dhammaantood wax statistics ah oo cilmi ku dhisan baan rabaa inaan idinla sheergareeyo statisticska koowaad waa maxay aid brandeska 80% shirkadaha adduunka ku jira affiliate program bay bixiyaan haddaad ka fikiraysid ama shirkadaha linkiga siinaya ay yaraadaan 80% shirkadaha adduunka ugu waaweyn waxay bixiyaan affiliate market programs bay isticmaalaan oo sababtu waa maxay sababtu waxa weeye shirkaddu markay badeeco soo saarto badeecadaas waxay rabtaa in la iibsado waagi hore waxaa la samayn jiray waxaa loo dhiibi jiray xaysiin bay shirkaddu samayn jirtay kharash bay geli jirtay kharashka markay gasho waxaa laga yaabaa inaysan cidna gadan ama cido gadato laakiin hadda waa la fikrayo affiliate ka dhiga qof wixii kuu xaysiiyey qofkaas isagu kharashka ha galo markii lagaa gato kadibna kharashkaadu iska jar ka warran fikradda soo fikrad ideology aad u fiican weeye
يعني adigu lacag kaa bixi mayso xayeysiintaas ilaa la gato shaygii. Marka lacagta waxay fuushay qof kale affiliate qofka affiliate-ki marka shirkadii annagii weeye. Xaggan waa meesha la yiraahdo caqabadaha ay ka leedahay affiliate-ska u daran. Shay qofka inuu maanta oo dhan xayeysiiyo shirkad cusub ay soo saarto cidina gadan weydo. Marka caqabadii hadda marketerkii soo fushay. Laakiin shirkaddii iyadu runtii aad bay yani ugu faa'iiday arrintaas. Sidoo kale 25% sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sheego suuqa ugu weyn affiliate marketing maanta waa Maraykan. Shirkadaha ugu badan isticmaalana waa America. Dadka ugu badan labada nin hadda idin soo sheegay xataa Maraykan bay ahaayeen. Laakiin barnaamijka maadaama wixii links yahay oo badeeco la gadanaya ay tahay oo markii linki inta lagu soo daro wixii dhar ama ay la socdaan hadda sida halkan uga jeeda 25% all affiliate programs are in fashion industry shayga ama badeecada ugu badan dadka adduunka isku xayeysiiyaana boqolkiiba 25 maanta waa fashionka waxa la xiriira kabaha dharka waxyaabahaas jewelryga la xiriira weeye marka wixii maadaama wax haarayihiin waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaali ah inaysan applicable u ahayn Soomaali wax u xayeysiisid adiga Soomaali baa tahay dadka wax ku xayeysiinaysid oo tusisid inay Soomaali yihiin sababtoo ah hadday wixii linki ku dhuftaan oo wixii ay dalbadaan cidina u keenayso Soomaaliya kama shaqeeyo dropshipping laakiin shanta dowladood ee adduunka ku sareysa dropshipping hadda hogaamisa markii channel lagu diray 6 ay ku noqonayso Maraykan Ingiriiska Australia Canada iyo New Zealand baa haysta shantaas waliba isku luqadna way ku hadlaan shirkadihiina si waxay uga shaqeeyaan laakiin adduunka hadda oo dhan wuu soo kobcaya saas daraaddeed qofka Soomaaliga doonaya inuu affiliate marketing barta wuxuu ku khasbanaan doonaa in dadka uu tusayo inay dad international ay noqdaan sidoo kale almost 65% market generate traffic by blog waxa ugu badan hadda fiirsho waxa ugu badan oo yani lacagta lagaga helo affiliate marketingka waa blogging waa arki doontaan sida lacagta looga helo laakiin dadka wax qora writerska oo website-dada leh majaladaha weyn dad badan ay ku taxan yihiin leh baa boqolkiiba 65 waa meesha ugu badan traffic-goodu ka yimaado lacagta meel walba traffic-gaaga batana dee saleski waa badanaya tusaale ahaan website-dada Soomaalida website-ka ugu caansan sheega website-kaasoo waxaa weeye linka badeecagada oo yiri qof ii dhexdhig marka qoraal inta ka sheekaysid qoraalkaas linkiga ugu dambeysay ama ugu horumari wixiina wax related oo inay yihiin gadaal baan ku arki doonaa 50% affiliate marketing contact with the customers dadkaas 65 boqolka blogging-ka leh dad social media lehna wey waana dadka ugu dhow dadka ay wax ka gataan yani ma jiro qof inta saga ka yimaado wax kaga gata adduunka trust wax la yiraahdo la dhisaa qofka bloggerka ama affiliate marketingka liibaanay lacagta inta trehelaya qof la yaqaan oo caan ah oo dadka ku taxan ay yaqaanaan wuxuu sheegayo wuxuu qorayo weeye qofkaas 50% dadka buu ka yahay dadkiisu waxaa laga yaabaa qof dhif oo iskaga kan yahay wax kaga gato linkiga qoraalka marka ugu horeysa akhristo laakiin mostly 50% factors about waa wadnaa the majority of affiliate marketers 48 boqolkiiba dadka affiliate marketers waxay sameeyaan $20,000 wax ka yar sanadkii sidoo kaleeto qodob halkan idan ka maqan baa jirta 86 boqolkiiba dadka affiliate-ka bilaaba ama isku daya inay ka shaqeystaan way fashilmaan boqolkiiba boqol soo maaha boqolkiiba 86 waa fashilmaan 14 soo haray 14 soo haray boqolkiiba 14kaas 48 ka mid ah baa 20 samaysa intaasoo majaaladood baa xaqiijiyey akhrin kartaan laftarkiina kutis waxaan waa status ma aha wax yacni aan iskaga hadalday sidoo kaleeto affiliate markets generate boqolkiiba 12na waxay generate gareeyaan intaas iyadan majaladahaas qeexay sore qoraalka laba jeer buu qodobkan qoran yahay labaadna waxa weeye boqolkiiba 3na $150,000 wax ka badan bay sanadkii sameeyaan si guud haddaan halkan idiin sheego qofkii affiliate marketing doonaya inuu noqdo staticska dadkii hore u noqday waxay sheegayaan horta boqolkiiba 86 waa fashilmeen sababtuna waa maxay waxaan waa had shaqo iyo juhdi baa kaa baxan badeeco aad lahayn baa xiisinaysaa lacag adigu leedahay baa laga yaabaa inaad hormarisid waxaa laga yaabaa wixii inuu hard worker uu yahay suuqi dad badan hal shay ay wada xiisinayaan inta soo hartay oo guulaysatayna majority-gooda boqolkiiba sanadkii waxay sameeyaan $20,000 48 يعني 86 مصر wuxuu u baahan dad laab lakac ah ma aha yani dadkoo dhan dad badan baa ku liibaanay oo si badan uga faxay oo lacag badan ka sameeyey dadka saaraya oo dadka laab lakaca kusoo gala oo cilmi aan wixii aan u lahayn oo doonaya inay maantaajir noqdaan dad kaleeto normalkaana boqolkiiba dee 20,000 bay sanadkii sameeyaan hore waan kuusoo sheegay 5,000 6,000 7,000 buu bishii sameynaya normally markaas way ka badanaysaa waxaa laga yaabaa inay noqoto 50,000 laakiin normal celcelisaan boqolkiiba 48 dadka adduunka oo affiliate marketers successka sanadkii 20,000 bay sameeyaan
boqolkiiba 12 dadkaasna 75 kun bisan boqolkiina 350 kun bisanadkii sameeyaan waa sanad waxaas marka qofka waxaa laga rabaa Soomaaliga inuu cilmiga hayo waqtiga hayo juhdi geliyo yeeris uu suga waxa kan ilaa khibradeeda meesha ugu sarreysa uu gaaro uusan rajo ka gelin waxaan arkaa dad badan horeyna waa idinku sheegay in lagaga digo lacag maalin lagu sameeyo bil lagu sameeyo ma jirto haddaad aragtaan qofkaas wuxuu doonayaa inuu adinka lacag idinka sameeyo sidaas daraaddeed laguma degdego talooyinka saasa ee la xiriira kaala maalintii $100 samee maalintii $200 samee maalintii $1,000 samee waa run maalintii $1,000 boqonta waa samayn kartaa laakiin waa marka years of experience aa haysatid years of knowledge aa haysatid aad wixii waqti kusoo dhex jirtay wax billion oo maalin soo dhistay weye wax lagaga samayn karo okay maxaa xiga oh good sida lacag looga sameeya affiliate marketing lixdan step baa aad u sharaxi doonaa lixdan step qofkii mara I am sure in 100% inuu lacag ka samayn doono affiliate marketing affiliate marketingku ma adka mana dhib badna laakiin juhdi iyo waqti bay u baahan tahay xogaana waana wareer oo waxaa laga yaabaa caqabado badan inay qofkii kaga yimaadaan horeyna inaadan ka quusanin oo maxaan ku radaa wixii waqti iyo juhdi aa gelisid laakiin yani aad marka hore stepskaaga aad uga fikirtid lixda step haddaan guda galo qodobka ugu horeeya waa maxay qofka inuu platform doorto saan hore idinkugu soo sheegay qofka affiliate marketing gelaya horta marka koowaad waa inuu yahay qof audience haysta audience waa maxay waa dad tusaale ahaan anigoo kale youtube hadda ka hadla anigu youtuber maayo laakiin casharo baan soo geliyaa waxaa laga yaabaa qof youtuber ah youtubekiisaas 100,000 qof ay ku xiran yihiin 100,000 qof international ay yihiin yacni affiliate marketing aad buu anfacaya hal linki oo soo dhigo oo maxaan ku rahdaa intuu bimita review buu sameynaya ama reaction buu sameynaya biyo buu reaction ka bixinaya cagad biyaha buu soo qaadaya u sharaxayo cagadii biyaha buu aad u ammaano dee linkigeedana hoos buu leeyahay haddaad rabtaan linkiga hoose ku dhufto saa u gadataan buu leeyahay waa youtuberka optionka ugu horeeya waa maxay haddaad rabtid inaad affiliate marketing noqotid number one waa inaad platform doorataa platformkaaga waxa go'aaminaya waa maxay inaad platform iska dooratid maan horta waxa aad ku fiican tahay waa maxay bimatalan aniga waxaan ihi personally I prefer right wax qoristaan jecla so waxa ugu habboon waa maxay waa blogga in that means dadka ugu badan ee horeyna waa idinkugu soo sheegay waa bloggers maadaama dee soomaalidu dadku wax akhrista way yaryihiin laakiin adduunka wax dadka wax akhriya waa badan yihiin laakiin soomaalida maxay ku fiican tahay youtube-ka tiktok-ga instagram-ka facebook-ga mar labaadna dadka wax la tusayo soomaali ma aha soomaalida wax gadan karta way yaryihiin soomaalida internationalka ma sheegin laakiin soomaalida soomaaliya ama africa joogta yani inaysan target kuu noqon oo internationalka ay noqoto so marka koowaad waxaa platform dooro platformkaasi dhis audience u yeel wax laala waxaa rabtid maxaan ku rahdaa dooree marka waad platform dooro platformka audience iyo dadka ugu taxansaa u yeelan lahayd ka fikir dadkaasna dalalkaas potentialka aan sheegay waa inay kuu noqdaan waxaa xiga markaad aad dooratay platformkii niche dooro maalin walba waxaa ka sheekaynin maalin siyaasad ha ka sheekaynin maalin war ha ka sheekaynin niche ku gooni ah dooro bolo waxa ugu weynaa maanta waxaa la yidhi haddaan anigu ahay blogger yani maxaa maanta jira adduunka 600 milyan oo blog baa jira haye 1.7 billion website-na waa jiraan blogga website-ka waa kala taqaanaa maamulin blogga qaybta wax lagu qoro website-kuna waa waxa guud weeye oo leeyahay website-ka waxa laga yaabaa mana categories inuu yeesho blogga waa category ka mid a marka maxaan u baahanahay intaas inaan kasoo dhex baxo to stand the best chance of success waa niche downkii yani wax gooni ah inaad dooratid tusaale ahaan waxaan doortay blog soo maaha inaan wax qoraan rabaa anaa iska sheekaynaya waa inaan qoraa wax ku saabsan caafimaadka bimatalan caafimaadka cudurrada ka sheekeeyo markaa kadib dad badan baa igu taxamayo cudurradii raba oo adduunka ilan corona ka jire inay wax ka fahmaan raba inay ka taxdiraan raba kadib maxaan u hoosgelinayaa ama dadkii u sheegayaa maalin baan saa caafimaadka u hadlaya waxaan ka hadlayaa waxyaabaha ugu habboon faraha lagu dhaqdo markaasaan ka hadlayaa sida faraha loo dhaqdo markaan soo sharaxo kadib shirkad soo saarta qalabka faraha lagu dhaqo agabkeeda linkigeeda haddaa u baahan tahay inaad faraha dhaqatid si fiicanna waxaa la linkiga ku dhufo badeecadaasaad baan kugu recommend garaynayaa ka waran yani waxaan rabaa wax category adigu kuu gooni oo niche inaad dooratid waana sida kaliya uga soo dhex bixi kartid dadka kula tartamaya niche down baa la yihahdaa youtube-ka kaleeto tusaale ahaan youtube-kan lama rabo inaad maalinba wax ka sheekaysid haddaad dadka soomaalida reaction bay u badan yihiin reactionista aad tahay waxaa la rabaa wax inkastoo dee soomaaliya asaan hore ku sheegay views bes aa raadinaysid laakiin ay muhiim tahay inaad raadisid wixii lacag ka badan in intaas kaa soo galaan waa
dad targetkaaga inuu ballaaran yahay haddaad af ingiriiska taqaana oo raashin tahay inaad si international ah raashinka u samaysid kadibna waxa raashin ka samaysid matalan filan raashin ka samaysid maalin filin hebel oo kaleeto maalin buug hebel oo kaleeto maalin wuxuun dadka anfacaya wixiina markaad raashin ka samaysid ama briefya ka samaysid linkiisa hoosa ku tiraahdeed haddaad u baahan tahay soo faahfaahsan buuggii wakaas ama filinka haddaad rabtid inaad daawato wakaas shirkadda marka filinkaa samaysay linkiga soo siiso oo kaleeto halkaas wixii commission baa ka helaysaa that's the second option kan ugu horeysa janaal dooro meel dooro tan labaad wixii wax kuu goonaa niish kuu goonaa yani wax u go ama dhakhtar oo caafimaad ku saabsan u go ama raashinka u go labada optionka saddexaad waxa weeye affiliate programs oo halkan way waxa sheekada ka bilaabanayso janaal baa leedahay dadna waa haysataa wax gooni waa ka hadasha okay maxaa u baahan tahay linkigiina heshid there's two ways marka linkiga ku heli kartid tan koowaad waa affiliate networks affiliate networks waa platformka tusaale ahaan si fudud haddaan kuu sharaxo affiliate networkska waa meesha kulmisa shirkadda rabta in wax loo xaysiiyo horey baan kusoo shirkadda adduunka siyaadayaan raba wax loo xaysiiyo oo affiliate doorata iyo qofka doonaya inuu affiliate noqdo si kale anigoo raba inaan affiliate linkiga wax ku xaysiiyo xaysiimo linkiga raadsado shirkadaha waxaan tegayaa networkyada kulmiya dadkii iyo shirkadihii sida clickbanks soomaalida clickbanks waa u taqaanaa clickbanks waa maxay wuxuu waxeeyo shirkadaha rabana way soo aadaan aniga inuu shiina haddaan u baahanahay maanta youtube-ka hadda ka hadlaya haddaan u baahanahay in maxaa buug aan qoray digital marketingka ku saabsan xaysiin aan u helo clickbank baan tegayaa qof ka mida buuggayga fiirfiirinaya wuxuu leeyahay buuggan waa fiican waa la gadanaya xaysiin buu sameynaya qof kasta oo buuggaas gatay qofka xaysiinta aniga ii sameeyey wuxuu ka helaya commission ana buuggaygii waa la gatay xaysiin waa loo sameeyey that is simple waxaa isugu yimaada networkska dadka shirkadihii iyo qofka doonaya inuu affiliate sameeyo ta labaadna waa maxay stand alone yani in adiga shirkadda aysan cidna idiin dhaxayn toos isku raadsataan tusaalaha ugu filanna waa maxay haddaba matalan program baan ku jiraa video baan duubaya videoga programka aan ku duubayo waa gat shirkad weeye shirkadaasaa marka waxaan u baahanahay inaan inta la hadla aan dad badan macaamiil badan baa igu xiran aniga daawata sidaas daraaddeed linki siiya dadkaasi dadka wax idinka gata commissionkeygana iga siiya linkii bay ii sameynaya aniga goonihii ah qof kasta oo isoo raacay oo i weydiiyey maxaan ku rahdaa xaggee waxaan ka duubtana yani commission buu ku heli doonaa qof kasta oo gata hee commission buu ku heli waxa soomaali anfacaysa waa bugaagta ama programyada la isticmaalo onlineka waxbaan tajka ahayn qofka soomaaliga hadduu affiliateka lacag buu heli karaa soomaalida dhexdeeda matalan haddii aan linkiga kan adalum videogan duubaya aan iisoo sheergareeyo oo aad gadataan aniga commission baan ku helayaa runtii adinkiina dee faa'iidadii baa helaysaan oo waxaa laga yaabaa inaad u baahantahay inaad screenkiina duubataan videoyada badan aad duubataan maxaa xiga labadaas option weeye meeshii network ah inaad tagtid iyo inaad shirkaddii toos aa ula xiriirtid janaalkii baad dooratay haddaan qodobka waxa waa inaad meel ku degtid kalabaad waxaa inaad niish gooni aad dooratid niish gooni markaad dooratid audiensigan aad dhistid maxaa xiga inaad linkigii soo qaadatid linkigii haye inaad samaysid maxaan ku rahdaa grid content videogan oo kaleeto xoogaa attractive way soo jiidanaya soo ujeedaan dadkii waxaa la rabaa toxicity affiliate marketing you need to create high quality content that people will read iska soo qaad tusaale waxaan ka hadlayo blogay ku qorayo waa in wixii dadka akhrin karaan weynaya wax maraxa oo yani aan attractive ahayn inuusan ahayn waa qodobka labaadna waa maxay blandil bermud si in la-aan inaa waxee qoraalkan blogayga ama youtube-kaaga inaad iskaga soo qortid badeecadaas gata linkiga iska soo dhigtid adoon wax gooni aan wadan matalan soomaalida kale raashinkaaga wana soo haddaad tiktok tahay tiktokgaagii fiidiyoyadaada waxaagii dhan inay kugu jiraan maxaan ku rahdaa waa inaad adoo hawsha tiktokga laga qaban jiro adoo ka qabanaya waa inaad linkiga dadka u hoosgelisaa muhiimaddu waa maxay waxa channelkaaga hadafka u dooratay inaad affiliate buu ahaa laakiin affiliateka waa in wax lagu wadaa iskama soconayo marka sideedoo kaleeto waa in maxaan ku rahdaa waxa dadka soo jiidanaya inaan qoraa aadan oran maxaan ku rahdaa badeecada amazon ka gata sidoo kaleeto waana aad uga taxadirtaan contentiga aad soo dhiganaysaan waa inaysan wax harmful ah sumcaddiina dilaya websitekiina burburinaya inaysan noqonin tusaale ahaan bulshada wax tusaysid waxa laga yaabaa waxay necib tahay linka haddaad u keentid ka hor soomaalida kaleeto khamro ama waxyaabaha xaaraanta diinta xaaraanta nabaysay linka haddaad tirahdo waxaas gata yani qofkan waxa lagu leeyahay waa lagaa tegaya ifan waxaa dhuminaysaa dadkii baa dhuminaysaa marka saas daraaddeed
waxa xayeysiinaysidna waa inaysan noqon wax maxaan ku ihahdaa sumcadaadii iyo pagekaagii ku ciyaaraya. sidoo kaletana wax iska soo dhigtay inaysaan wax dadkii content fiican websiteki content waxa la yihahdaa video ha ahaado ama muuqaal ha ahaado ama qoraal ha ahaade wax content adigu kuu gooni ah adigu aa leedahay oo article wax ka sheekeynaysid waa in adigu kuu gooni ah ay meeshii ku jiraan. intaas markaa isu heshid de maxaaba kuu dhimanba. website waxaa samaysatay tiktok ama youtube baa samaysatay youtube-kii baa dad u yeeshay waxaa soo qaadatay shirkad baa u tagtay waxa kasoo qaadatay linki dadkii wax fiican baa u sheergaraysay dadkii simply way qaadanayaan linkii waxbay gadanayaan. optionka shanaad oo yaalla waa maxay drive traffic to your affiliate platform. tusaale ahaan youtube-ka amaba facebooka ama blogaygiiba waxbaan kusoo qoraa maalin walba soo maaha. waxaa laga yaabaa waqti dheer inay igu qaadato inaan dad helo laakiin ka waran haddaad samaysid inaad drive traffic inaad traffic wixii aa u raadisid traffic sideeya inaad dad websitekaagii bloggaagii booqda aad heshid ama dad tiktokgaagii viewers badan waa inaad ka heshaa youtube-kii inaad wixii dad badan kugu taxnaa 3 option baa la samayn karaa markaas. koowaad waa maxay paid traffic inaad xayeysiimihii paidka social media aad samaysid qofka affiliate-ka ahaa ee linkiga xayeysiinayay si pagekiisa uu traffic ugu helo waa maxay waxa laga rabo inuu samaysto xayeysiin isaga gooni u ah dad badan oo laga yaabo video aan daawanaya waxa laga yaabaa inay iga soo raaceen pagekayga facebooka xayeysiin aan ku sameeyo course-ka announcement-ga ahaa. waa maxay waxay soo raaceen course announcement-ga halkan youtube-ka bay yimaadeen taas waxaan sameeyay paid traffic lacag baan ku bixiyay si maxaan ku ihahdaa audience aan u dhiso oo dad badan ay kanaaladeeda ay ku taxmaan. waa tusaale idinku filan soo maaha ama engine optimization aan sameeyo tan lacag maaha optimization waxay inta badan anfacaysaa websiteska iyo blogska waa in qoraalkaaga uu ugu kormaro pageka koowaad soo galo haddana lambarka koowaad uu noqdo googleka marka waxa la search gareeya hadaba mid haddaan googleka shiino kor u qorato waa inaan ugu soo horbaxaa oo waa yacni cilmiga CG waa arki doonaa insha allah taala cilmiyada ugu adag buu isna ka mid yahay ama email list waa inaan dhisaa email list waa isna waa arki doontaane waa idin sheegay qof kasta Soomaali maanta email buu leeyahay mobile buu isticmaalaa computer email la'aana ma shaqeeyaan labadaas emailkiisa maalin walba waxa ugu diraysaa qoraalkaagii ama waxa ugu diraysaa youtube baa waxa soo gelisa muuqaalka waa inaad qofkii ugu dirdhaa emailkiisa muuqaalkaas daawo si markuu daawado wixii linkiiba idinku hoos jiree oo wax u iibsado aad in loo fahmay baan rajeynaya waa maxay optionka muhiimaddu in website-kaaga bloggaaga ama youtube-kaaga ama tiktokgaaga aad u heshid traffic dad daawada u heshid saddexdaa option baana ku heli kartaa inaad lacag ku bixisid xayeysiin aad u samaysid isaga gooni ah in search engine optimization aad dhistidoo markii qofka uu waxbaaro tiktok oo kale haddaan hadda waxbaaro hees geliyo ama wuxuu reaction aan geliyo inaan ugu soo horbaxa ama ma ahana inaan person to person email list aan wixii ku dhiso. tan ugu dambaysa 6dan qodob kooraskayga maantay waxa weeye because you have awesome content doesn't mean Bobby will kick your affiliate link. tii hore pagekii baa waxa u hesha traffic dadkii waa yimaadeen way akhristeen videogaaga waa daawadeen xogta ku jirta waa qurux badanta linkii yacni kama dhigna in linkiga affiliate-ka ahaa dadka horey isaga dooranayaan waxaa lagaa rabaa marka laba qodob ilaa 3 qodob inaad tixgelisid linki placement meesha linkigaaga aad dhigaysid matala youtube-ka video soo dhigtay linkigaaga meesha commentigaaga baa dhigaysa soomaa mar walba amaba ma ahana isagoo videoga soo dhex gelin kartaaba marka waxa la linki placement waa qodobka koowaad la tixgeliyo if you are affiliate linkiisa saarto bottom to the page haddaa pageka meesha u hooseysa aad dhigtid qoraalkii aad kasoo sheekaysay dhakhtarnimada ahaa tusaalahan usoo qaadan meesha u hooseysa aad dhigtid yacni dadba inaysan gaarin baa laga yaabaa dadku intay joojiyaan isaga tagaan also waxaa la haddaad sidoo kale meesha ugu horreysa aad dhigtid sheekada meesha wax ka bilaabi lahayd qoraal inaad wax qorid dadka isbaami qof tuugaya ku malayaan badeecadaan gado qofkan waxaa la leeyahay wuxuu sheegay waa khiyaale articleka soo raacda videoga daawato waa video fake waa ka laabanaya in short marka haddaan wax soo koobo waa in topka uu ku jiraa wax fiican oo qoraalka qofkii xiiseynayana waa inay ka horeeyaan waa inuu isna article paragraphka labaad uu ku jiraa kooraskana maantay 6da qodob oo affiliate marketingka waan kusoo koobayaa fundamental ahaan wixii waa fahanteen wixii waxaa loo baahan yahay in la practice gareeyo qofkii raba marka intuu sameeyo intaas oo dhan markuu soo diyaarsado waxyaabaha ugu adaga la rabo waxaa ka mid ah clickbankigii ama waxyaabihii kaleeto clickbankiga Soomaaliya kuma shaqeeya iradaata waa sheegay laakiin I think inaan sheegay laakiin dee adduunka maanta wax kala xadidan ma jiraan qofki wuxuu iska samaysan karaa IP address buu bedelan karaa isagoo VPN isticmaalaya dal kale iskaga dhigi karaa amaba waxaa laga yaabaaba kuwa kaleeto inay ku shaqeeyaan marka
koroska advancedka baan ugu tagi doonaa insha allah sida kale bank link iyo waxaas looga qaato. Laakiin waxyaaba badan baa ka horeeya inaad fundamentalki fahantaan practice garaysaan. Ha ilaawinina inaad kanaalka subscribe sartaan share garaysaan waxa dad badan baa runtii u baahan dadka u baahan inaad gaarsiisaan sidoo kaleeto telegramka commentiga kusoo qoray inaad kusoo biidhaan. aad baad mahadsantihiin waan kaga mahad celinayaa daawashadiina wanaagsan. khamiista isniinta soo socota wuu casharka iyo ku xiga I think inuu ku saabsanaan doono baan fiirsho sorry social media oo tani aad bay u adagtahay aad bayna u dheedhahay marka insha allah iyadaan ku xijin doonaa. waxaa laga yaabaa asbuucaas ama asbuuca ku xiga journal in social media kaliya qaadato laakiin dhib ma laha. soo koobanaa fundamentalkiisa iyo ilaa intermediatekiisa inta laga soo gaarayo. aad baad mahadsantihiin. ilaa inaad share garaysaan subscribe na saartaan. mahadsantihiin.